الرحمن الرحيم انت عندو استاجين maanta yaa barjaar cid dagaalka bilowday xaaladoodu labadii maalmood u dambeysay waa ay deganeed sir kale oo weyn oo meesha ku jirta inta muuqaalka ugu dul istaagin waxa hadlay kan wasiirkan baa hadlay oo wasiir ku xigeenka waxbarashada ah iyo kan kale wasiiru dawladda ah xiriirka caalamiga waxay dhaheen maadaama Axmedoobe uu xanaaqay annaguna xukunkii waa ka tagnay maamaha bay leeyihiin nin baa dameer la ahaan jiray subaxii markii la guurayay buu dameerkii waayay dameero maxaa qaadaa waxa qaadaa laba jirgaan baa qaadaa labada jirgaan buu horta iska saarsaday ninkii waa iska guuray maqribka dameerkii ciyo halkaas uu ka soo dameer barasho wanaagsan subaxii la guurayay waa lagu waayay nimankan dabcan waa xildhibaano shalay markuu madaxweynuhu meesha tagay oo la wariyaa diidan oo inuu qof iyo cod gacanta ma ay taagin habeennimadii ilaalush qaateen waa sheekada Cabdiraxmaan Cabshukuur weeye oo la soo sawirayay isagoo baarlamaanka dhex taagan oo xataa wariyaa diiday ma jirto Cabdiraxmaan Cabshukuur gacanta u laabanta wariyaa ka aamusay ma jirto wariyaa ogolaaday waa taagay sababtu waa maxay waa naag dhilaa la kireysanayo weey lacag buu qaatay marka labada waxa leenahay Axmedoobe horta waa qeyrkiin waxa laga yaabaa bari Axmedoobe iyo Dani intay iskood isku garawsadaan ay dareemaan culays bahdil maanta wadanka la dagaalanka shabaab ku jira deegaanada faqriga iyo gaajada ka jirta garow waarta masaajidada laga qanuudaya boqol jeer baa idin sheegay wallahi ah dadkii garow deganaa iyo dadkii reer Puntland baa tuugsanaya boosaasa tuugsi ka socda gaalka ayaa tuugsi ka socda meel kasta oo Puntland wax ka socdo tuugsi oo diin warabulka qofna aanu ku xumaynin laakiin dadka shaqa abuurka hogaankii u sameyn lahaa qolbu isku soo xoreeyay waa qaylinaya Axmedoobe Dani mid kale fiican yihiin Axmedoobe de waa uu ku wanaaba nin weyn oo gar iyo shaarbina oo Soomaali wasiir u ahaa baasu nin qeyrkiisu Axmedoobe u qanciyo buubisa casriya bal Dani waa kaas Axmedoobe iyo Dani farqigaas u dhaxeeyo Axmedoobe baa ninsan Axmedoobe baa ninsan laakiin nimanka wasiirada waxa leeyahay reede waraano beejkan iska ah aan xildhibaan ahay oo wasiir ahay Dani iyo Axmedoobe waxay wadaan diiday Axmedoobe iyo Dani Ilaahay bay kaga yimaadeen ummadda Soomaaliyeed shaqada aad u haysaan bay iyagu idin doorteen ma ina qabiilka daarad la dhaho bay atihiin oo aad reerkiina saami ku heshaan ba Axmedoobe iyo Dani idin soo xulaan wariyaa waxa tiin waxa xiriyaha xaar darsay atiine intaas ka badan baa iska filay dadka Soomaaliyeed qofka marka wax loo dhiibay iskama hubiye labadan anigu waxaan ku soo arkay madaxtooyada Jubbaland guriga martida waliba ninka jiiral dhaw xiriirka caalamiga ah saaxiib u ahay haddaad hal mar la sheekaysato oo hal iyo laba war ida dhaxmaro waxaad filaysaa wadanka xaaladii ugu khatarsaneed inuu marayo sababtu waa maxay IQ-ga dadka xilalka noo haya 90% xataa ciyaalka kuma jiro marka weydiiso sababtu waa maxay nin dhan oo xataa reer matalaya ama shacab Soomaaliyeed matalaya waxaad ku arkaysaa isagoo ftada faraha kula jira waana mas'uul ma dhigi kartid war deeso adiga daray hadde ma dhigi kartid marka waxyaabo badan oo la yaabo waxa ku arkaysaa dadka siyaasadda ugu jira halka horta waxa kala la dheersan oo caawa halka anigu bilada ku siiyay xoga Axmedoobe Roon oo kan dibira aqli dhaama nin buuran xariif ma aha sababtu waa maxay inta uu Dani rag soo qortay hal habar ku soo noqotay mar koo waa jiraan markii hore isaga ka tagay oo aaday Xasan Sheekh Maxamuud oo Xasan wax ku soo waayay laakiin isaga wax lagu noqon karo maxaa dhacay oohin buu kula hor fariisanaya abaal taaga tagtay Axmedoobe xoga waxa ma yaqaan waa kala deeyaa halkaas meeshaas ku dhaamaa waa meeshaas weeye farqiga labadan u dhaxeeyo farqiga weyn labadoodna si jamaca u sheegaya afka beesha daarood ana ku hadlayo waxaan leeyahay wallahi maalinta subax saaka ciidii baahan male Somaliland baarlamaanka matalaad baa ka joogta Puntland baarlamaanka matalaad baa ka joogta Jubbaland baarlamaanka matalaad baa ka joogta Koonfur Galbeedna baarlamaanka matalaad baa ka joogta Galmudug matalaad baa ka joogta intii naas nimankeena maamulada fadhiya caalamka waxa wadi waan gashantiin gobortoorayaal gudoomiye gobol hadda tabartada aqoonso weeyo Soomaa maal cad baa geedi uu ka guuray marka saacid la soo fariisanaysa sidii qof iyo cod loo ansixiyay hadduu Xasan ka noqdo anigu waa u sheegaya kuwa badan oo hawiye ah oo meesha anagu mareynay waaga Xasan keenay ra'iisul wasaare shahaadinay saddex Axmedoobe iyo Dani ra'iisul wasaare isku haysteen anaa keensanay labadaba iska tagaa leeyri Xamza oo iska min Allah ya Ilaahay dibaa ugu dhuftay marka kuwa badan oo hawiye ah oo maanta Xasan qoriyo waxa la leeyahay wareede war dalku qof iyo cod buu aaday annaga soo socdaayo shacabka Soomaaliyeed wax u dooranaya laakiin hal mid caawa iga hooy waxaad iga hooydaan haddii Xasan uu filada barnayo oo nin daarada yimaado waa id ogaay Cabdiraxmaan Cabshukuur wuxuu rabaa ra'iisul wasaare Sheekh Shariif wuxuu rabaa ra'iisul wasaare
madax sabuul khayr shaqada ra-iisul wasaare kasoo bilaabmay marka haddaa rabtaa inaad jikan nooga shaqaysaan wallahi shaqooyinku waa badan yihiin welcome baad leenahay alxamdulillahi rabbil caalamiin waa rabnaa wax noo shaqeeya hadday tahay shacabka soomaaliya in loo shaqeeyana hadda xukuumadda dan qaran oo dagaalo sokeeye oo shabaab oo mid etoobiya le ku jirto balmaan dheed bay haysataa iyo talada meesha ku furto siyaasiyiin baa tiina xoogaa tv-ga ka gabada xamse iyo xasan kuwa badan hawiyaha oo qaylinaya sheekh shariif ka mid yahay cabdiraxmaan cabdishukuur ka mid yahay siyaasadda uga soo horreeyay waayo maqli jira cabdiraxmaan cabdishukuur baa badgatay dee xashiq madaxweyne mu ahayn xataa lama aqoon waa magac abdullahi maxaa algaas uu ku yidhi ma adiga oo maadaa kuu tanaasula uu ku leeyahay khayr madax sabuul iyo kan ii sheeg waagii siyaasadda ku jiran sheekh shariif iyo xasan iyo xamse labada midna siyaasadda waxba kama aqoon mana ku jirin niman mutacalimiin oo dalka wax u bartay bay ahaayeen waayo andar waa jiibiyaasha siyaasadaan dhihi karaa iyaga waayo waxaan dul istaagayaa meeshii qorlugud ahayd dagaal baa ka socda laisku hub aruursanayo gurmadku meelo badan buu kasoo baxayaa hartiga dhexaysa gurmad fara badan halkaas nimankii cisaaqa garxajs oo laftirkoodu halkan marka carcar si kursiga nimanka habar jecla maadaama de mucaarad noqdeen dagaalka cidda bilowda ayay dul istaagaya aniga runtaa laygu yimaadaa dagaalka waxa bilaabay dhulbahantaa bilaabay u shaqaynaya muuse bixi cabdi ku shaqaysanaya muuse bixi cabdi hadda idiin sheegaya anu naharti ah afartiidna boqol jeer baa ku hadlay oo ku difaaca ilaa haddaan ku hadlaya annaga iyo cisaaq haddaan dhul leenahay dhulka aan wada leenahay ama noo dhexay waa labada gaatama wey dhul ka sokeeya oo annaga iyo cisaaq aan leenahay ma jirto laba dowladood oo layihahdo puntland iyo somaliland ama khaatumo ama layihahdo anugu way jiraan dowladahaas laakiin mabda'a qabiilka iyo dhulku meel buu leeyahay marka kelmadda dhulku ma guura dadkiisaa guura bulshada horta cisaaq ku taagnaa tii dhulbahanta kama jawaabin waa uu guulaystay nin gardaran ma guulaysto shalay markuu guulaysanaya dhulbahante wuxuu u guulaystay waxay ahayd waa laga gardarnaa maanta in habar jeclo ee guusha la jirto oo nimanka habar jeclo ay maanta gacan sarreeyaan oo nimanka habar jeclo markay dagaalka bilaabaan wax ka dhawaaq badan male an intay buwaalan karaa anu waa aqaanaa waa niman aan ishayno wey dhul isku hayno laakiin maanta waa laga khaldan yahay maanta waxa dhawaqda wada oo dhubuqda wada waa nimanka aniga tolkaya wey hartiyeed waxaan arkay garaa jaamac oo runta xushmad badan iyo qadarin badan aan u hayo isma lahayn war aan maanta u baahnayn buu sheegi doonaa wuxuu yidhi annagii cisaaq waa wada hadalnay buu yidhi waayo maxaad noo waarisa hadda adii cisaaq wada hadasheen marka xaggee ku wada hadasheen annagii cisaaq laascaanood baa isku dil waanu kala calaf qaadan idinkaana istaajiyey meesha aad leediin waanu ka wada hadalnay xaggee wey meesha ku wada hadasheen aniga ii sheeg wax weyn baa jira oo shacabka laga qarinayo war weyn oo ay dhulbahantaha ama hartiga kale ka qarinayaan baa jira garaad jaamac waa uu sheegay weliba garaadka jaacsiyaadkaa sheegay mid baa ka agle tv-ga wuxuu ka ag leeyahay u dhaara buu leeyahay u dhaaro mid baa ka agle kuwa kaamirayaasha baa wax leeyahay oo u dhaaru leeyahay laakiin meesha aad ku wada hadasheen idinkay habar jeclo maxay tahay habar jeclo soo kuwii 500 oo nin naga dilay maaha habar jeclo soo kuwii ina bootaan uu ka dhashay ee madaafiicda ku garaacay ee doobinayay oo kibrayay soo maaha habar jeclo miyaysa ahayn nimankii markii dambe anagu u jeedna is soo abaabulay dagaalka diyaarka waa soo maaha habar jeclo soo nimanka ma aha markii dambena muuse garabkiisa ka baxay soo maaha maanta haddii aan ogeyn ciddaa u shaqeynaysaa muuse bixi cabdi u shaqeynaysaa runta idiin sheegaa weydeen muuse bixi cabdi maanta waxaa u shaqeynaya oo la garab ah waa dhulbahanta wey haddaan run la sheegina been baa qarsoon anigana hadda idiin sheegayayo xogta aan idiin hayo ma aha xog biyo kama dhibcaan ama xogta ciyaalka xog run ah oo garaadkii daarood ah oo waxaan saxda oo meeshaan ku jira anigu ma raba inaan laba xisbiyo somaliland ku dhex milmo anigu mabda'a soomaalinimada markii laga tago inay reerkiisu ku weyn tahay ba ah runta markii la sheego laakiin qolyahan khaatumo waa sheegayo maakhir ma raba inay xala dhistaan iyo u tegi karo talow dhihi karaa puntland ma raba inay xala dhistaan ma rabaan shacabka soomaaliyeed inay wax la dhistaan iyo dowladda federaalka oo ra-iisul wasaarahooda xamse meesha fadhiyo oo u yeeray u sacba goglay markuu arkay dadkaa cararay lama ceyrsan karo dadkaani shalay hargeysa ka yimi hargeysana u socdaan waxa aniga hargeysa yaalla ma sixir baa ma suqaar baa ma jaqaaq baa meesha lasaga siiya aniga ma aqaan dadka ma kaliibyaa laga haya allahu aclam laakiin fii shay waxbaa jira halkaas dadkaas iyo dadkaa kale kaga kalsoon yihiin baa jira ma mabda'a soomaalinimada iyo nimankan dhulbaanta wuxuu ka shaqeeyaa in soomaali kala tagto miyuu ka shaqeeyaa ma aqaanin ma fahmi waayo laakiin arrintan dagaalkan dhulbahantaa bilaabay isagaana maanta qaylinaya isagaana laga gacan sarreeya oo habar jeclaa gacan sarreysa waxaana halkan baaq uga dirayaa walaalaha reer miiga ah
halkaas ku leeyahay waxaan leeyahay labadiinaba muuse aad u shaqaynaysaan inta doorashada laga gaaray haddaa is dilaysaan bal intaa keliya break baasha u qabta halkaas arrintaa lagu joojiyo waa la diiday soo maaha baaqa aan diraya waxa weeye haddii qolada muuse u shaqaynaysaa jabaysa kuwa dhaawacoodu badan yahay hadday habar jecla muuse u shaqaynaysana habar jeclaa jabaysa oo ii sheega halkaa waxa ku dhacaya siyaasamul jamca way waluuna dubur haddii ay dhulbahanta sa aan sheegayo aan aaminsanahay oo aan xogta harti oo dhan ku wada hayno dee hoose xanshaashaqaayo dadka laga qarinaya ay tahayna ogow dhulbahanta soo jabaya dagaalka waana ku ceeboobaya waxaana khatara in laasacaana lagu murmo mar kale baa khatar aada u weyn ah warka lagama sinaysto waxaana mar kale halkan baaq uga diraya waxa weeye isla dhulbahanta waxaan leeyahay tolow ninku jecel wax kuu sheega in wanaagaaga iyo qadarintaada wax ku ool yihiin baa wax kula toostoosiya anigu waxbaan kula toostoosiyaa ma jeclin wax kaa xumaadaan laakiin hadda dadka caamaha moodi kaa cilmi badan kaa aqoon badan kaa munaafaqsan kaa siyaasad dheer maanta anigu adaan rabin inaad noqotid adigu un ahaw laakiin ma rabtin inaad noqotid haddaan rabin inaad noqon adoo aan ceeboobin oo cisaaq dambe ku noqon weji kuma hayaane waa raggii 500 oo nin kaa dilay si loo keeto tolkaa kugu soo gurmaday adiga daaroodna idaan kala dhimaan niman yahow puntland si toos wixii ugu soo biiro wax la dhista tolkii oo wixii madmadow ah ee meesha ku jira laga saaro haddii taasi shaqaynayso ma nimanka warsangeli u taga warsaldanadu waa gob wey warsangeli waa niman warsangeligu wax ogol wey laakiin warsangeligu jacaylka ma yaqaano nacaybku warsangeligu yaqaanaa warsangeligu wuxuu yaqaanaa tiisu yaqaanaa ma yaqaan niikada iyo qoora salaaxa runtaana kuu sheegaya warsangeli u tag suldaanka u tag shir hartiyaad hala qabto maamulkaaga lagula meel mariyo buuqaan iyo dagaalkaan iyo sawaxankaan iyo waxaan iska daa kan allah ku waxaan lagu baabaa horta jira waaye haddaad guulaysanayso waaba guulaystay ilaahay guusha ku sii adaa diiday maalintii aad burca geli lahayd oo ilaa labada gaarta qabsan lahayd oo sool iyo cayn aad noqon lahayd maanta cid kale oo baahan tolka oo baahan tahay dhibaato kale tolka ha geline wadanka dhaqaala burbur iyo balaayo iyo owl anoo iska kursi ku nool ba ahayn kursigaas uu noo dhaafay dabada lama shidana dabaka warsangeli ha kula toostoosiya leeytu muuqaalka meel dheer beegaysa loofka anoo yacquub siyaada bahla iga daata fideogaad ku soo gaara assalaamu calaykum raxmatullaahi tacaala wabarakaatu